waxaan wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah dagaal xalay ka qarxay magaalada Beledweyne oo ay soo abaabuleen koox la magac baxday badbaado Hiiraan iyo jab culus oo la gaarsiiyay kooxda Jeneraal Xuud ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo dhabarjibin culus kala kulmay beesha caalamka iyo madaxweyne Farmaajo oo si xun u bahadilay kadib shaqo joojintiisa isagoona amray in beesha caalamka aysan la shiri karin in aan sharciyad haysan maxaa ka jira in xiisada labada mas'uul ee dalka u sareeya ee hadda hawada isku shareertay xagee ayay saxal maraya nisa oo soo saartay digniin culus oo la xiriirta xiisada siyaasadeed ee dalka shirka golaha wasiirada oo laga soo saaray go'aamo ka dhan ah madaxweyne Farmaajo qodobada iyo kuwa kale oo xasaasi ah ayaad barnaamijkeena subaxnimo ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay markii koobaad ee aad soo booqato channelkeena subscribe oo furo gambalelka si aad u noqoto daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena maalinlaha ah wararka naga soo gaaraya magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in goor dhaweed oo dagaal xooggan ka qarxay iyada oo dhawaan loo ogolaaday madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guutlaawe inuu ka soo dego magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan magaalada gudaheeda ayaa laga maqlayaa rasaas xooggan iyo hubka noocyadiisa kala duwan waxaana lagu soo waramayaa in dagaalku u dhaxeeyo mid ka mid ah saraakiisha hogaaminaya ciidamada badbaadada Hiiraan iyo ciidamada taabacsan maamulka Hirshabeelle wararka ayaa intaa ku sii daraya inuu jiro khasaare kala duwan oo ka dhashay dagaalkaas oo qaarkood uu gaaray dad shacab ah oo aan ka fogeyn goobta uu dagaalku ka socdo gaar ahaan xaafadda Kooshin ee magaalada Beledweyne sarkaalka hogaaminaya ciidamada badbaadada Hiiraan oo lagu magacaabo Nuur Dheere ayaa horay uga mid ahaa saraakiil ka hor istaagay Cali Guutlaawe safar uu ku qorsheynayay inuu ku tago magaalada Beledweyne dagaalka ayaa ku soo aadaya xilli ay dhawaan waxgaradka duubabka iyo odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolka Hiiraan oo ku shiray magaalada Muqdisho ay sheegeen in madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guutlaawe uu tagi doono gobolka Hiiraan oo sida ay sheegeen aan cidna ka hor istaagi karin sidoo kalena waxgaradka ayaa madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Dabageed ka dalbadeen inuu raaligelin ka bixiyo hadalkiisii ahaa in doorashada xildhibaanada ka dhacaysa Beledweyne ay ku soo bixi doonaan xubnaha ay rabaan qorshaha tagista Guutlaawe ee Beledweyne ayaa mar kale wajahaya caqabad weyn iyadoo odayaasha dhaqanka beelaha dega gobolka Hiiraan ay sheegeen inuu tagi karo xilli aan weli si rasmi ah loo dhammeyn xiisada taagan dhanka kale nisa oo soo saartay digniin culus oo la xiriirta xiisada siyaasadeed ee dalka hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee Soomaaliya ee nisa ayaa uga digtay ciidamada qalabka sida inay ku milmaan siyaasadda xilli ay xiisad siyaasadeed ka taagan tahay gudaha dalka qoraal kooban ee nisa soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa lagu yiri tariska nisa wuxuu ku howlan yahay sugidda amniga wuxuuna ka digayaa kumilanka siyaasadda ee ciidanka qalabka sida iyo in la siyaasadeeyo waajibaadka ciidanka shacabka Soomaaliyeed waa ku maasan yihiin mar walba garab istaaga hay'adaha amniga qaranka qoraalka nisa ayaa waafaqsan digniino hore u bixiyeen taliyaasha ciidamada xoogga dalka iyo booliska oo ay ciidanka uga digeen inay ku milmaan siyaasadda magaalada Muqdisho ayaa waxaa hadda ka taagan cabsi la xiriirta inuu dagaal ka dhici karo iyada oo ciidamada badbaadada qaran la baxay ee qaran dumiska ah ay diyaar u yihiin inay difaacaan ra'iisul wasaare Rooble oo madaxweyne Farmaajo isniintii isku dayay inuu awood ku qabsado xafiiskiisa Rooble ayaa dhacdaas kadib uga digay ciidamada ammaanka inay ka amar qaataan madaxweyne Farmaajo falqayaasha siyaasadda ayaa rumaysan in digniinaha ka dhanka ah kumilanka ciidanka ee siyaasadda ay yihiin kuwo lagu badbaadinayo ra'iisul wasaare Rooble oo rumaysan yahay inuu hadda ka soo horjeedo ciidamada intooda badan nisa ayaa waxaa hogaaminayay Yaasiin Faray oo ku xiran madaxweyne Farmaajo iyo taliyihii hore ee nisa Faad Yaasiin Xaaji Daahir iyadoo xiisada hadda taagan ay ka dhalatay sabab ay ka mid yihiin kursiga xildhibaan iyo Yaasiin Faray oo ku guuleystay oo muran badan dhaliyay Farmaajo ayaa hadda wajahaya cadaadis xooggan oo uga imaanaya dhanka Rooble sidoo kalena Rooble ayaa sida muuqata looga adkaaday dagaalkii siyaasadeed ee dhexmaray isaga iyo madaxweyne Farmaajo kadib markii madaxweyne Farmaajo uu ku sameeyay shaqo joojin sidoo kalena uu u diiday inuu la hadlo beesha caalamka shirka golaha wasiirada oo laga soo saaray go'aamo ka dhan ah madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golaha wasiirada xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa caawa kulan ay yeesheen
muqdisho waxay uga hadleen arrimo muhiim ah oo khuseeya xaaladda dalka, siyaasadda amniga iyo doorashooyinka. golaha ayaa cambaareeyay shaqo joojinta 27 Diseembar lagu sameeyay ra-iisul wasaare Roble iyo in ciidamo la dhigay xafiiskiisa, iyagoo muujiyay sida ay waxan yihiin falkaas. golaha wasiirada ayaa isku raacay in baaritaan dhab ah lagu sameeyo ciddii lugta ku lahayd duulaankii lagu qaaday hay-adda dastuuriga ah ee dalka, isagoo ra-iisul wasaaruhu soo magacaabi doono guddi ka kooban 5 xubnood oo baaris dhammaystiran ku sameeya sidii ay wax u dhaceen. golaha wasiirada waxaa lagu ansixiyey xisaab xirka miisaaniyadda dowladda ee 2020. waxaa kale oo la ayiday qorshaha sugidda amniga caasimadda oo ay soo bandhigtay wasaaradda amniga gudaha, kaas oo faraya in la sameeyo ciidamo isku dhaf ah oo ka kooban qeybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. waxaa golaha wasiirada looga mahad celiyey taageerada xukuumadda ee beesha caalamka iyo hogaaminta ra-iisul wasaaraha ee doorashooyinka iyo shirka golaha wadatashiga qaranka oo ra-iisul wasaaruhu ku dhawaaqay. shirka uu gudoominayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa waxaa kale oo looga hadlay arrimaha abaaraha iyo cudurka faafaha daran ee COVID-19. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. fadlan daawada haddii ay tahay markii koowaad ee aad soo booqato channelkeena, subscribe dha oo furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee wararka aan sida maalinlaha usoo gelino. mahadsan.